إبو محدا يا غدب لسيدا وباحا الليل هلا إبو محدا نلا العقوبة عارنا الليل هلا إبو محدا ولا العقوبة عارنا الليل هلا إبو محدا يا غدب لسيدا وباحا الليل هلا إبو محدا نلا العقوبة عارنا الليل هلا إبو محدا يا غدب لسيدا وباحا الليل هلا إبو محدا عيدي بنتنا لا بابولي اللهم باني لوروري عيدي بنتنا لا بابولي اللهم باني لوروري كان مانتا وفرنا هوتيل مريديان مقالة نيروبي دالك كينيا يدو بيشو كبيرتاي صدقي نباتانكا بيش أكتوبر سنة لابد كني تمكا أوركا داليردا إسوايو صليب كل مقالة نيروبي دالك كينيا وحافة حدوى إن ملاحظة تلسن دولد صوماليا داليرو قال إيسا كدوان لو بقل haween iyo ururada bulshada rayidka xubno ka socdanay halkan maanta kaga dhageysato aragtida ay ka qabaan mowduuc aan soo xulnay oo runtii xasaasi ah marka loo fiiriyo xaaladda uu hadda dalka marayo waa doorka waalidiinta Soomaaliyeed kaga aadan in aan carruurtooda loo isticmaalin dana siyaasadeed iyo mid diimeed qof walba oo fadhiya holkan waxa uu xaq u leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto SOA-na waxay aruurinaysaa afkaartiina si markaas ay uga soo baxdo natiijo wax ku ola oo xal u ah dhalinyarada dhibaatada dalka Soomaaliya loo isticmaalayay muddadii aan soo dhaafnay 20 sano haddii aan iskiin baro aan idin baro ragga raalli ahada مسؤولية فضيلة ماشى أو ضد عملان دونا يدينكو أركتين ديبو دونا وحاكم النقل دونا أديان لإدمو مدن محمود بوليد قحمة داري أو حاوزيك وريدولون الصومالية
haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. waxaa khudbad kooban oo aragtida safarada ku saabsan loo jeedin doona haddii aan la idmo Maxamed Cismaan Aadan Ilson waa qunsulka Soomaaliya waa safarada Soomaaliya Kenya. waxaa dooda nagala qaybgalaya Sheekh Umar Sheekh Maxamed Faarax gudoomiyihii hore ee culimada al-sunna galwada ee dalka Soomaaliya na caalim weyn oo si weyn looga yaqaan dalka Soomaaliya. Abdulqaadir Maxamed Cusmaan barnaamij agaasimihii hore ee madaxtooyada qaybta warfaafinta. waxaan filaynaa inay goorna soo gaarto Zaare Cumar Maalin oo ka tirsanayd xubnaha haweenka ugu fircoon ururada bulshada rayidka haddana ah xubin fircoon oo ka tirsan guddiga abaabulka dastuurka qabyada ah ee dhowaan dalka Soomaaliya loo sameyn doono. Maxamed Ibraahim Cali gudoomiyaha Israel ayaa dooda sidoo kale qayb ka ah. dooda way noo bilaaban doontaa laakiin waxaan ku furan doonaa wax lagu furto waxa uu sheekay badan aayadaha Quraanka Kariimka maadaama aan nahay ummad muslim 100% waxaa akrinaya Zakariya Maxamuud فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يهديكم ويأتي بخلق جديد ما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأغنيكم عنا من عذاب الله الشديد. قالوا لو أتانا الله لآتيناكم سواء علينا أم سفرنا ما لنا من محيص. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أدو ماسيهاي زكريا محمود ونوو أخرناي أو نوو فري حفلة العيدة القرآن الكريم ده غيبلياش حفلة مع كعصرنا إلانيان نظام كحفلة ده inta ay doodu socoto ama marka aan mowduuca dooda galno waxaan ka codsanaa qof walba oo qaybgala aragti qaba in uu farta taagto si markaas dad aan u diyaarinay ama dhalinyaro u diyaarinay mikrofoonada wireless-ka soo gaarsiiyaan meeshiisa loogu keeno qof walba aragtidiisa xur ay u yahay. waxaan rajayn doonaa inay doodan maanta halkan u fadhino ka soo bixi doonto natiijo fiican oo wax badan ka qaban karta xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan dhalinyarada dalka Soomaaliya oo runtii boqolkiiba 99 dhibaatada Soomaaliya hadda iyaga loo saadaalinayo ama ay tahaba inay yihiin kuwa urinaya si walba oo loo isticmaalo iyo si walba oo loo qaldaba. qof walba oo dhalinyarana waxaa mas'uuliyad ka saaran tahay in dalka Soomaaliya uu noqdo mid nabad ah. maxaa yeelay waxaa la heli lahaa mustaqbal fiican. dhalinyaro badan maanta waxay yihiin qaxooti ku yihiin dalalka aan hadda joogno deriska ah. kuwo badan waxbarashadiisan kuwo badan nidaam dowliga soo arkin waxay ku hana qaadeen dhalinyarada Soomaaliyeed hub iyo qori iyo in la isdilo. waxaan rajaynayaa maanta in mowduucan ka doodeen oo xasaasiga ah aragti fiican ay ka soo baxdo aragtiyooyinka ay iga doontaan. intaan dooda gelin waxaan ku soo dhaweynayaa oo kelmadii safaaradda noo jeedin doona Maxamed Cismaan Aadan Ilson waa qunsulka safaaradda Soomaaliya iyo Kenya. بسم الله الرحمن الرحيم. odayaasha dhalinyarada soo abaabushay shirka gudoomiyaha ururka SY oo xildhibaanada siyaasiyiinta shuyuukhda dhammaantiin aad iyo aad baa u salaamantihiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كتير aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan anoo ku hadlaya magaca safiirka oo maanta naga maqan iyo safaaradda iyo shaqaalaha safaaradda dhammaantood magaca dowladda kumeel gaarka ah. qayb weyn baan waxaanu ka nahay soo dhaweynta iyo dhiirigelinta is-abaabulka dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta runtii halkaan ka muujisay waxdaraalo iyo maaragtay garasho zaa'ida iyo dareen zaa'id oo runtii annaga aad noo dhiirageliyay maanta.
dhowr noocba muhiim bay u tahay dhalinyaradu inay is-abaabisho mana filaynin runtiisaan inay isu abaabuli karaan maanta iyagoo duruufo aad iyo aad u adag ay waddankan iyo iyagaba haystaan dhalinyarada gaar ahaan sidii uu sheegay ninkii iga horreeyey duruufo badan baa dhalinyarada soomaalida soo wajahday oo nooc walba ah marka dareenkan ay hadda muujiyeen waa mid maaragtay isgelin mudan oo mudan in la sii faafiyo oo lagu sii faafiyo gobollada waddanka loo maaragtay kabagashado maanta arrintaan sidii looga qaban lahaa dhalinyarada maaragtay mawduucyadooda annagii oo dadkii waaweynaa aanan ku fiilaanin in aanu dareenkaan oo kaleeto soo jeedno haddaan xafiiska safaaradda soomaaliyeed magaalada nairobi haddaan unahay aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa wixii taabkuleena wixii tala ah wixii maaragtay aan geysan karo diyaar baan durannahay maamulka ururkana waxaan ku boorinaynaa inaanu wada shaqayn dhab ah aanu ka wada helo oo annagu diyaar aanu murannahay waan soo dhaweynaynaa mawduucan adag oo hadda maanta halkaan doodiisu xiise badan aan hubo inay dhalin doonto maadaama uu yahay mawduuc waaqici ah oo muhiim ah oo halkaan kolley fikrado badan ay ka soo bixi doonaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتهي أبو ماسين هي محمد عثمان آل نيسون قنصلك أي سوق مقابيا أوركا بنيرة صومالية Somali Youth Advocacy Organization SYO صليت كل مكان نيروبي الدولة كينيا وقت قلنا هيا دادين ضد وانسيب الأمضنا كلنا وكلنا هدي عليكم سنادي شيئا قف وربا حقوا لي أيها الكتير سكديتو موضوع ما تأكدوا به وحنقول مريا وزير في أيها كلها الدولة الصومالية محمد محمود كلها كعمله وكمل ما شرف معناته نرفع بالله وأنفسكم اللي رمتي أيها فريستان كل واحد وقع علينا وقحوتكو أحداث الصومال دلك كينيا أدرس كناي رمانتون أي تهاو حكسو تيجي بباطري دلك كاروسين وحنميما إن عن كشقي نسي دلك عن أقول عملهم سي دلك عن حقوق بنا وحقوقنا وحقوقنا سعادة الوزير مركب البلكون أكتر هذا الموضوع عن إيو سيدا نقول لي حفلة قابل وصف عبدالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد